joogaan xitaa shacabkeena qurbaha laga wada qayb geliyo annagana ka maamul gobol ahaan waxaan diyaar u nahay mudane wasiir inaan si garab istaag ah howlahaas baaxadda leh ee haysaan bulshadii gobolka banaadirna isku keen xirno taladii laga qayb geliyo taladoodii oo aruursanna ay noqoto midda lagu dhisi doono iyadoo talooyinka gobolada kale iyo qurbo joogtana muhiim noo wada yihiin marka soo dhawaada waa idinkaga mahad celinaynaa sida wasaaraddu ay in muddaha u shaqaynaysay muddadii sanadka ahaydna horumarka aad samayseen uu muuqdo gobolladii intiisa badan aad gaarteen dadkii lala soo tashtay weliba annaga waxaan rabnaa tashiyada inay dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka qaba aad loogu badiyo aadna loo dhagaysto waddanka soomaaliyana waxa iskale waa shacabkana waa dowladduna waxay wax ku tahay shacab marka sidaas daraaddeed soo dhawaada waxaan idin rajaynaynaa in howlahan dastuurkana uu meel fiican gaaro arrimaha muhiimka ahoo la rabo wixii siyaasadda u baahanna gobolka banaadir ma ahayn nagama maqnayn inaan nimaadno laakiin waqtigeeda la sugayna waxaan ku faraxsanahay maanta inaan noo ballan qaaday in aan gaarsiin karno wadatashiga degmooyinka oo dhan ka bilaabo Wadajir ilaa Hodan iyo Halwadaag iyo Shangaani iyo meel walba inaan gaarsiin karno oo aan ugu tagi karno xaruntooda ugu tagi karno ballanqaadkaasna aadan ugu faraxsanahay waana ka shaqaynaynaa waxaan kaloo rajaynaynaa inaan badino wadatashiga oo maamulka guddoonka gobolka iyo maamulka iyo degmooyinka guddoomiyaashoodana inaan iyagana is aragno aan aragti ka wada yeelano ka bacdina shacabka aan u sii gudubno mana noqonayso hal mar keliya waxaan ballan qaadaynaa inaan noqonaa partnership aan samaynaa oo aan shacabka sidaan ugu dhaweyn lahayn siyaasaddan loo dhan yahay oo aniga adiga hore uga soo wada shaqayn jirnay inaan gaarsiinaa wixii oo annaga kaalmaha looga baahan tihiinna diyaaraan u nahay waxaan rajaynayaa guddoomiye Tuulax iyo tiimkiisa inay moka forum ka aan samaysano oo ah madasha lagu wada hadlo ku wada hadlaan wasaaradaha dastuurka ama goboleedyada iyo wasaaradda dastuurka federaalka ku wada hadlaan inay ka soo noqdaan xubin muhiima shirkan loogu soo horeeyo haddaan qaban doono oo ku saabsan madashaas oo ka dhici doona Baydhabo 17 18 iyo 19 bisha March marka mar labaad waxaan ku leeyahay guddoomiye aad u mahadsan tahay waxaan idin rajaynayaa kulligiin shaqo fiican iyo mataqaanaa horumar haddii Ilaahay